mowqifkeennu aad buu u cad yahay waxaan door bidnaa in xal nabadeed lagu gaaro wada hadal waxaa la isku dayay kaliya 3 jeer wada hadal ilaa iyo hadda mid ka mid ah waxa uu ka dhacay Nairobi Kenya 2 jeerna waxaa lagu kulmay Turkiga mowqifkeennu markasta waa u cad yahay mowqifka Soomaaliyeed waxa uu ahaa mid had iyo jeer ahaa mid joogto ah waxaan u sheegnay Ethiopia inay soo maraan jidka saxda ah iyada oo la raacayo xeerar iyo qawaaniinta caalamiga ah oo la isku raacsan yahay oo jira Abiy Ahmed waxaan rabay inaan ku iraahdo waxaa jira 16 wadan oo Afrikaan ah oo aan bad lahayn dhammaantoodana waxay haystaan dekada ay isticmaalaan laakiin dhibaatada Ethiopia ma ahan marinka badda oo ay isticmaasho Ethiopia waxa ay rabtay in ay dhul Soomaaliyeed ay qabsato dhulkeedana ay ku darsato sababtoo ah Ethiopia waxa ay isticmaali kartaa badda Djibouti waxay isticmaali kartaa Kenya marka ujeedadu ma aha in ay bad isticmaalaan ujeedadooduna waa in ay dhul goostaan oo ay ka qaataan Soomaaliya waxa kale oo ay ku riyoonayaan in ay saldhig ciidan ay ka sameystaan badda cas gacanka cadmeed si ay awood ay ugu yeeshaan badda cas taasi oo aan dhici karin marna dhici doonin marka taasi waa farqiga inoo dhaxeeya maya arrinku sidaasi ma aha nuxurka iyo MOU-ga ee Ethiopia iyo Abiy Ahmed la saxiideen Somaliland waxa uu ku saleysan yahay 2 arrin mid waxay ku andacoonayaan inay rabaan bad ay isticmaalaan mid kalena waxa ay ku doodayaan in ay ka sameystaan saldhig ciidan oo Ethiopia ku xiran haddaba maxaa xal nabadeed ah oo MOU-ga uu sheegaya loolankan waxa uu xadgudub ku yahay midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya sidoo kale tani waxa ay xadgudub ay ku tahay sharciga caalamiga ah axdiga caalamiga ah ee qaramada midoobay axdiga midowga Afrika axdiga IGAD iyo kan jaamacadda Carabta sidaas daraadeeda marka Ethiopia waxa ay u dhaqmeen si ka baxsan sharciga caalamiga ah haddana waxa ay ku adkaysanayaan xalku inuu noqdo sida ay rabaan iyaga oo aan u jeedinin sharciga caalamiga ah Ethiopia ma siin karto i'tiraaf dhul Soomaaliyeed sababtoo ah aqoonsiga caalamiga ah waxa uu ku yimaadaa hay'ado iyo sharciyo dhibaatada Somaliland waa dhibaato Soomaaliyeed haddaynu israacno haddaynu isqilaafno haddaynu kala tagno waxaasi oo dhami waa go'aan madax bannaan oo ah mid Soomaaliyeed ma go'aamin karto Ethiopia arrinta gooni isu taaga waxa ay soo socotay 30 sano ee ugu dambeeyay midowga Afrika weligiisa ma aqoonsan IGAD weligeed ma aqoonsan iska daa qaramada midoobay Ethiopia ma laha saldhig sharci oo ay ku aqoonsan karto qayb ka mid ah wadankeena talaabadan Ethiopia waxa ay kaliya u furi doontaa go'o kale oo ah colaadda gobolka Ethiopia waxay qatar ay ku tahay xasiloonida iyo nabadda gobolka waxaan ay ku andacoodeen in ay ilaaliyeen xasiloonida gobolka laakiin taasi run ma aha waxaan ay qatar ku yihiin xasiloonida gobolka maanta dhibaatada kaliya Ethiopia ma aha ee MOU-ga sharci darrada ah ee la gashay Somaliland laakiin dhibaatadu waxa ay tahay faragelin badan oo ay ku hayso Soomaaliya Ethiopia waxa ay hub badan ay soo gelisay Soomaaliya waxaana ay hubaysay kooxaha iyo hogaamiyaasha qabaa'ilka iyo maleeshiyaadka ee ku sugan xuduudda Soomaaliya taasi waa mid cad oo meel walba waa laga heli karaa imise hub oo Ethiopia ay u soo dirtay Soomaaliya si sharci darro ah how much weapons Ethiopia has sent to Somalia illegally and in the southern part of Somalia particularly in the region of Gedo dhanka koonfurta Soomaaliya gaar ahaan deegaanada gobolka Gedo Ethiopia waxa ay ku soo xadgudubtay deegaanada qaar iyada oo ku andacoonaysa Masar ayaa imaanaysa ma jirto saldhig sharci ama sharci caalami ah oo u ogolaanaya Ethiopia waxa ay sameynayso Ethiopia waxa ay jabisay dhammaan xeerarka u yaala Soomaaliya waxay halkan dalkan u joogaan laba mid waa waajibaadka midowga Afrika iyo qaramada midoobay iyo aqbalka Soomaaliya midka kalena waxa uu ahaa heshiis laba geesood ah oo dhaxmaray Soomaaliya iyo Ethiopia cadaawada Soomaaliya iyo Ethiopia waa boqolaal jir laakiin taasi waa la soo afjaray dhawaanahan waxaana bilowday in aan albaabada u furno walaalnimo cusub daris wanaag cusub oo dhaxmara labada dal ee Soomaaliya iyo Ethiopia
nasiib darro Itoobiya waxa ay ku xadgudubtay kalsoonida heerkaasi ee labadeena dal hadda waxa ay dib u celiyeen dhibaatadeennii qarniyadii hore waxaana ay xoqeen boogihii hore waxa ay dhiijiyeen nabaradii hore ee colaadda labadeena dal kuwaasi oo qarniyo soo jiray waxaan rajaynayaa in maskaxdoodu ay soo laaban doonto oo aan dhibaatadan ku xallin doono qaab nabadeed maya taasi run ma aha Soomaaliya waa dal madax bannaan marka hore haddii ay Masar qayb ay ka qaadanayso ciidamada nabad ilaalinta taasi waa go'aan u yaala midowga Afrika iyo qaramada midoobay haddii Masar ay rabto in ay qayb ka noqoto howlgalkan haddii Masar iyo Soomaaliya ay ku heshiyaan laba geesood in masaaridu ay yimaadaan Soomaaliya kaasi waa go'aan madax bannaan oo u gaar ah Soomaaliya masaarida iyo Soomaalida waa laba dawladood oo madax bannaan iyaga ayaana go'aan ka gaari kara waxa ay sameynayaan laakiin waxa aan rabno oo ujeedku ah waa in Soomaaliya aysan rabinin dhibaato Itoobiya ayaa dhibaato abuuraysa ha xaliyaan dhibaatada qaybtooda ma ahan in ay ka hadlaan in ay ka taliyaan waxa Soomaaliya go'aan ay ka gaari karto xalku waa in ay fahmaan in ay sameyn kareen waxa ay doonayaan marna yeeli doonin adduunka maanta ma ahan dunidii qarniyo hore waxaan joognaa adduun casri ah Soomaaliya waxa ay haysataa fursado badan oo ay wax kaga qaban karto caqabadaha jira sidaas oo ay tahay waxaan aad ugu rajo weynahay geedi socodka Turkigu inuu xal keeno haddii aan xal loo keenin arrintan dhammaan fursada ayaa miiska u saaran Soomaaliya haddii ay Masar tahay iyo haddii ay tahay dal kalaba Soomaaliya waxay raadinaysaa hab kasta oo ay kaga hortagi karto oo ay dib ay ugu dhigi karto halista Itoobiya ee qarannimadeena maya wili ma iman Masar waxa ay taageertaa Soomaaliya waxaana ay tababartaa ciidamadeena amniga waxaana ay nasiyaan oo ay nagu taageeraan agab qalab iyo qaybaha amniga maya heshiis difaac ayaanu Masar la galnay laakiin waxaanu leenahay heshiis difaac oo la mid ah oo aanu la galnay Itoobiya 10 sanadood ee ugu dambeeyay heshiisyada difaaca mar walba waa hamaamuus difaaca waa qaab dhismeed laakiin waxaa jira hamaamuusyo gaar ah oo ay tahay in la raaco Masar iyo Soomaaliya waxay xaq ay u leeyihiin in ay ku heshiyaan hamaamuus gaar ah oo ku saabsan xiriirkayaga iyo axdigeena fulinta ee heshiiska difaaca ee la galnay Masar taageero ayaanu ka dalbanay Itoobiya 2 sano ka hor sidoo kale taageero ayaanu ka dalbanay waxaan taageero ka codsanay Kenya Djibouti Mareykanka Sacuudiga midowga Yurub dhinac walbana waana taageeray Soomaaliya wuu taageeray sababtoo ah Soomaaliya waxa dagaal ay kula jirtaa kooxaha argagixisada ee caalamiga wadan kasta oo adduunka kamid ah waxaanu weydiisanay taageero oo wayna sahaydeen Masarna waa kamid tahay ma jirto arrin u gaar ah Masar Djibouti hubayna siisaa Kenya ayaana siisaa Mareykanka sidoo kale midowga Yurub ayaana taageeraysa waxayna Masar kamid tahay dalal badan oo Soomaaliya taageera Egypt is supporting Somalia. They are training our forces, our security forces. They are supplying us and supporting us to instruments, tools, equipment for our security sector. But there are no Egyptian boots in the ground yet. Tomorrow is another day.